cimrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabade dharaaraan cayniyo nin xoolaale muxuudiin shariif bakaari hambalyo aniga dhankayga takii dhibcood ee loo baahnaa dhankayga waa haa وهاجاك داوديال ولي waxaan nagala socotaan shaashada TV-ga caalamiga Soomaaliya SMS TV oo aad kala socotaan barnaamijka tartanka hibada qofka wareegga koowaad qaybtiisa labaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddiga sharafta leh Aadan Shimberlays Yusuf Xaybaro iyo Ustaad Shooli oo aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin dhalinyarada meesha fadhiso waxaan leeyahay ayagana dhamaantood way mahadsan yihiin haddaan u yeero qofkii kaleeto waxaan u yeerayaa Ismaaciil Nuur Maxamed soo dhow guddiga qabanqaabada tartanka hibada SMS Somali TV kaamiramanada tartamayaasha walaalaha oo saaxiibada ah oo ila tartamayo dhammaan maamulka Somali Media waxaan idinku salaamay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ismaaciil Nuur Maxamed degan degmada Yaaqshiid xaafadda suuq bacaad ee gobolka Banaadir hayska aan ku tartamayo waxa qaaday fanaanka boqorka codka run ahaantii codkiisa lama keeni karaayo waa Xasan Aadan Samatar hayska aan ku noqon doonana waa cishadu ilaahay cirka taaga udubliyo ciidana ka dhigay Google marka aad u mahadsantahay Ismaaciil Nuur Maxamed waa bilaabi kartaa عشدوا إلهي عركتاga udubli ciidana ka dhigay gogol bararararam bam 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 bararararam baram bam عشدوا إلهي عركتاga udubli ciidana ka dhigay gogol وبيدا عرتمايو عرف يدا بدك جحيرا يبورها علوس بام برررررر بام برم بام وبيدا عرتمايو عرف يدا بدك جحيرا يبورها علوس بام برررررر بام برم بام cimrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabade dharaaraan cayniyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabade عينيو ننحولالي إيا لبا إسعاد شغاي برارام عاوانا كميتين عين كذا كوغين بام برارام برارارام إيا لبا إسعاد شغاي عاوانا كميتين عين كذا كوغين لا 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 أدنى علفك كوقران عناسيقي ماي عاشقها بايعن هذا ما سنت إسماعيل نور محمد dhibcii baan hilmaamay heeskii baan yana jiitay runtii laakiin aad baan wada xasuustaa هلاك إسماعيل ما شاء الله نكان حوجا لفتكيس وحنا ملاقي قاعيل بدن بكقيب كله وديارسين يتهم باهان يقولوا كل سوري وموجين هاي ما شاء الله عفكي بقطن تيموسيكيسي نوح بدن يقبوها إسماعيل وحن كسي حق عودك
9 runtii aad u sareeyay toonka aad ku heesaysay walow maraad qalad yar gashay haddana waxaan ku siiyey 8 erayada waxaan ku siiyey 8 masraxiixadaada waa ka helay 9 baan ku siiyey teembadana waxaan ku siiyey 6 marka runtii xaggayga waa haa بسم الله codkiisa waa aad u fiicnaa anigana waxaan siiyey 8 toonkiisa ma xumayn 7 ereyada ma xumayn 7 masraxiyadiisa ma xumayn 7 teembada meeshaas waa 4 aan kaa siiyey oo walow meesha markii qalcadda dhammaato meesha aad ka sii qaada lahayd aad haddana meel kale ka sii bilaabaysay marka teembada iska ilaali intaada kale okay aad tahay 33 dhibcood aan ku siiyey waa guulaysatay ismaaciil waa mahadsan tahay aniga dhankayga codkaaga waxaan ku siiyey 7 sidoo kale toonka waxaan ku siiyey 8 erayada 7 masraxiyadaada 9 runtii aniga waxyaalahan kuu qiimeynay masraxiyada ugu sarreysay teembadana waxaan ku siiyey 4 isugeyn guud dhibcahan ku siiyey waa 36 dhibcood anigana dhankayga waad ka gudubtay waxaan ku leeyahay waad degi kartaa waa tahay waa la isku dhagan yahay tartamayaasha hore way ka duwan yihiin barnaamijkan aad u xiiso u leeyahay waxaan leeyahay guulaysta dhammaantiin waxaan u wici doonaa maandeeq axmed maxamed soo dhowo aniga magacaygu yahay maandeeq axmed maxamed degan degmada daniile waxaan ku tartamayaa heestii saare axmed jaamac adduun nugul ku dogsan maandeeq cabsi badanaa kaa muuqata cabaar taagnow neef qaado mikrofoonka u soo dhawow way kaa muuqataa digadaad ka dhigi doontaa marka kalsooni iskeli kalsooni iskeli sababtoo hadda hadalkaagii baan la fahmi karaynin marka hay mikrofoonka u soo dhawow يعني وأنا سديري جلسوا كورين تانا هياس كبلابين هذا هيستو دقودي وعم بقعدنا يسا لكن هذا يستشي ميكروفون كوسو دو أدون نقول كدوك سداي رهونا نودا دوب كدي نفيرو وحقون سداي رجعني موي نكاجي نعسني ماما حابدي نفسي او ايانكو حجابات كنوشين هدي ان كنا ولي هاي قبي نصيبيهم إلا انتحيلكو وانبار وانودو علولي أولاغا منوح صدو الله أيونا نمد قلي ناسيو نرورنا نمعداد نقودور أدون لسنولي آي نرورة داديكي قوا نحلينا نكوسيبدو أذنك صنع شقا معني بشان وحسدي نفتوحي بديدة نبادي الناس ننقر هدي أن كنا ولي خايق بالنصيب يو إلا انتحيل كوان نبار وانذب علولي أولاغا منوح صدو الله يونا نبادك لي ناسيو نرورنا نمعداد نقودور نلوال قودي واقيو نعاسيقو أنبدايو نلا دوف سانايو وما سنتهاي مانديق أحمد محمد وقت بأنه يردرتي بيت كيس التحاد بعد وسي سعوتي هاسكا أنت بدنا ضدك سوالد ما بيغانا بيت كيس التحاد لو بدا بيت القادم بيغانا المانديق محمد أحمد أنيقا دنكيقا
codkaaga waxaan ku siiyey 7 toonkana waxaan ku siiyey 7 cabsi badan baa laakiin kaa muuqatay cabsidu waxay kaa luminaysaa wax badan oo aad runtii ku guulaysan lahayd way kaa luminaysaa toonkana waxaan ku siiyey 7 erayada sidoo kale 8 masraxiyadda 7 teembadana 4 aniga dhankayga waad ka gudubtay waxaan ku leeyahay haa mandeeq runtii tartan markii aad galayso waan dareemi karaa tartan sidiisaba imtixaan oo adag iyo mar walba qofka komboleyso cabsi baa ku jirto tii ugu sarreysay baa kaa muuqatay codkaadu runtii aad buu u wanaagsanaa laakiin waxaa qaldamay cabsida kugu jirtaa kaa qaldaysa marka hadda kadib isgeeji dabcan waan ku sii daayey codka waxaan ku siiyey 7 toonka waxaan ku siiyey 7 erayada 6 baan ku siiyey masraxiyadda waxa ugu wanaagsan la shaqo timid bay ahayd 8 baan ku siiyey teembadana 5 baan ku siiyey in badan baad fiicnayd gadaalna marar badan baad yaad qaldaysa marka teembadana iska sax wixii hadda ka dambeeyo cabsidana iska saar waxaa la rabaa 5,000 oo qof yaa doonaysaa inaad ka shaqo doonatid oo u heestid oo waqti la qaatid jawi la qaadato marka isgeej xagayga marka haa anigana guddoomiye waxaan ku darayaa gabadha codkeeda aad u fiicnaa 7 siiyey toonkeedana wuu fiicnaa 6 siiyey eryadeeda ma xumayn 6 siiyey masraxiyaddaada waxaan arkay dhan adaa ugu toobsanay masraxiyaddaada aaday u sarraysay 8 aad qaadatay masraxiyadda teembada barfartuuna teembada heeska markaa qalcadda bilowdid beela waaye markaa dhammaysid beela waaye qalcadda kale meeshaa ka qaadanaysa haddana meel cusubaad ka qaadanaysa kulligiinna saasaad u badnaydeen teembada kale baraad haysataa 5 dhibcoodaan kaa siiyey isku darka guud 32 dhibcoodaa intayda ka qaadatay waxaan ku leeyahay haa waad guulaysatay waad digi kartaa mandeeq oo maasanta waa hagaag daawadayaal waxaan ku jirnaa barnaamijka qeybihiisii dambe wareegga koowaad qeybtiisii labaad waxaan leeyahay dhallinyarada dhammaantood waad guulaysateen waxaan u wacayaa muxudiin shariif bakar magacaygu waa muxudiin shariif bakaari uu degan degmada yaakshiid waxaan ku tartamayaa heesuu qaaday maxamed mooge maxay dantu ciisho wiilow maxay dantu ciisha wiilo dulqaadiyo deeqlahayoy dadkuna dooqan moodayaan maxaa deer caggeel halahabo dib jiray uu cunay dugahago ninkii lahaa daydayaa waqtigu waa isdaba socdaa adigu deeganaa abaar markuu dirir uu da'ayoy daruuruhu way curtahanugu xariid ku dabaaladsaa markuu dirir ku da'ayoy daruuruhu way curtahanugu xariid ku dabaaladsaa intay deeqdaneeba maqan tahay intay deeqdaneeba maqan tahay haddiidin hana ilaa dagaaline dubkaa iigu yaaliyo wadanahayga damqashada kadaa muxudiin shariif bakaari hambalyo aniga dhankayga 50 dhibcood
ee loo baahnaa dhankayga waa haa aada mahadsantahay وهاجاك عيدين ما شاء الله إن قاوانا عود أنت على يجينو كتشيرو يا رهو واحد وين وانا يري صول بلاقي صباح أنت وقفتن يا ما شاء الله معيدين طبعا عدك وحن كسية طبعا وهذا هلك يجوس الرئيسي يعني كوس حيي تومك وحن كسية طبعا وهذا هلك يوجد بيسون وحكوس حيي erayada waxaan ku siiyay 10 oo ahayd halkii ugu dambeysay wax lagu saxaayay masraxiyada waxaad iga aruursatay 10 teembadana sidaas leeg waxaad xagayga ka daftay 10 konton dhibcood oo ahayd rikoorkii ugu badnaa cid masrax ay abadiga qaadatay baad iga qaadatay waxaan ku rajaynayaa hibada ilaahay ku siiyay inaad halkaa ka sii wado xagayga waa ha waliba heeska ugu horeeyo aniga ayaa ku siinaya insha Allah macal muusigeeda anaa ku tumaya codkana ka qabanahay aniga wax yaraan ku kala duwanahay codka 9 aan dhiibay toonkana 9 erayada 9 masraxiyada 9 teembadana 9 shan dhibcoodna waa ka reebtay sababta ma taqaanaa kulligiin hadda iga dhageysta adiga dadkaan waa ka duwaneed adiga gurigaagaa muusig laga tumaayay teembada saasaad ku soo heshay luunika barsoonaa tahay aad iyo aad maca salaama war ya ma ka shariif bakaariyaa dhale shariif bakaariyaa ka maasantahay waa gudubtay teembista aad u sarreey u ahaa waa tahay muxudiin waxaan leeyahay hambalyo waad guuleysatay dhammaantiin waa guuleysatay niyadaas ka jibinina tartankan tartanaa ka dambeeyo wareegaa ka dambeeyo wareeg kalaa kasii dambeeya halkaasaa lagu kala haraa baashanu halkaasii jirtaa anigana waa idiin sii digaan waxaan idin leeyahay dhaxda marya ku dhuuqsada issoo adkeeya isreebreebku halkaasuu ka jiraa kan waa midkii koowaad waa laga gudbay midka labaad iyo midka saddexaad u diyaar garooba insha allah waxaan u yeeri doonaa hadda qofka ugu dambeeya intaan u yeerin ka hor waxaan leeyahay dhammaan tartamayaasha aad u mahadsantihiin halkaad nagala socoteen waa TV-ga shaashada TV-ga Soomaaliya SMS TV shaashadiisa iyo baraha bulshada meelaha aan ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka waxaan leenahay barnaamijka xintaan kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas nabadgelyo waxaan u yeeri doonaa Xamdi Ismaaciil Axmed oo gabagabadi ah soo dhow بسم الله مقعد وحمد عثمان أحمد وحن كسعدا دقمة بسم الله مقعد وحمد عثمان أحمد وحن دقنا دقمة دايني له يعني هستا كتر تماين وساه أحمد جامع هستي ذي نفكو جعل الدنيا نفكو جعل الدنيا ذا الله وعوح نلالو نبذل لا وذاقو نمع لقولا واري من نقولي كالقعلبا ناريو كادرانولول مركونو دايقا كاقلو نباروي هاليسوي إيدا نبديقا قالين أوصو نقنقشدا هيقا مودين عاسنمو أنا هدي أنكنا ولاي نفبا ولا دورا نصيبكو هايغو كادرو أنا هدي أنكنا ولاي نفبا ولا دورا نصيبكو هايغو كاسيمو حمدي عثمان أحمد عدك أنا قدن كي واحد كسيلح تونكا ورنتي دور تونو كلا دوان كهستي واحد كسي صدح أريد واحد كسي أفر
sidoo kale masraxiyadda 4 teembadana 5 aniga dhankayga waa maya 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 عندي طبعا meesha waxaa loo yimi tartankuna marna wuu kaa farxiyaa marna wuu kaa naxiyaa cod waxaan ku siiyey 3 toon waxaan ku siiyey oo dhuunta halka laga heesayay oo 3 qaybood ii kala aaday 3 baan ku siiyey erayada 5 baan ku siiyey ayaga ugu roonaa masraxiyadda 3 baan ku siiyey teembadana 2 baan ku siiyey marka xaggayga waa maya 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 soo dadaal haddii aad xiisaynayso inaad barnaamijka ku biirto sidoo kale anigana 15 dhibcoodaan siiyey wadarta guud codkeeda 3 aan siiyey toonkeeda 3 ereyada 6 masraxiyaddeeda 3 iyo teembada oo 3 ka heshay waa maasante xamdi wadii kartaa telefishanka wuxuu kaa caawinayaa inaanu ku siino training insha Allah billahi alkarim tartanku socdo waad nayman kartaa xarunta qof kastoo tartanka ka hadhaa halka baanu training ku siin doonaa insha Allah telefoonada laga soo wici doonaa dadkaan u sheegi doonaa waa hagaag intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa tartanka hibada qofka wareegiisii koowaad qaybtiisii labaad oo aan maanta halkan ku duubnay oo aad ka daawanayseen telefishanka caalamiga ah SMS Somali TV iyo sidoo kale akoonadaan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube iyo Facebook halkan dhalinyaro fara badan oo ilaa 8 gaadhay ayaa ku tartay maanta isugu jira wiilal iyo gabdho waxaan jeclahay inaan sidii caadadaynu ahayd aan sheego qofkii ugu dhibcaha sareeyay oo helay 145 dhibcood oo kaliya laga reebay 5 dhibcood maadaama wadarta guud ee guddida tahay 150 dhibcood inuu qofku buuxiyo balse 145 dhibcood buu keenay hambal yaan leeyahay Muxidiin Shariif Bakaari oo ahaa qofkii maanta ugu sareeyay dhinaca gabdhahana waxa ugu sareysay Nafiisa oo iyaduna keentay 126 dhibcood labada qof ugu sareeyay hambal yaan leeyahay dabcan waxaan jeclahay inaan ogeysiiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xiiseynaya inay ka soo qayb galaan barnaamijka hibada qofka oo hibadu aanay ahayn kaliya in la heeso ay jiraan hibooyin kale oo kamid tahay inuu qofku ciyaaraha ay tahay dhaqanka ciyaari karo sidoo kale inuu artist yahay wax sawiri karo oo gacantiisa wax ku sawiri karo indha sarcaadka isaguna qayb kamid ah hibooyinka ama hibo kale oo ku gaara oo aan dadku ogeyn oo jeceshay inaad soo bandhigto xarunta telefishanka waxa ku taala agagaarka sayidka ama waxaad naga soo xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda intaynu ku kulmi doono tartanka xiga waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban gudi ahaan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu